maanta oo ku beegan maalinta sagaalaad ee bisha Carafo waa maalin aad u fadli badan isla markaasna ah maalin lagu dhaafayo 2 sano oo dambi ah haddii aad soonto soonka maalinta sagaalaad. Dadka kale ee ku sugan xajka ayaa gudanaya acmaal aad u weyn oo ka mid ah rugniyada Islaamka. Mid ka mid ah rugniyada ay gudanayaan kuwaasi oo ku cibaadeysanaya beedka Allah. waxaa leenahay dhammaantood Allah ka aqbala acmaasha ay ku gudanayaan halkaasi. Ducooyinka ay noo soo duceynayaan ummadaha Islaamka ee dunida ku nool wadamo badan oo dhibaato aad u ballaaran ay haysatana Allah ka dulqaada ayaan ugu duceynaynaa ducadooda Allah noo aqbalo. ilaahanta inta kale ee aan ku sugneen xajkana ayagana soon ay soomayaan soonkaasina waxaa lagu dhaafayaa dambi aad u weyn, acmaal aad u weyn weeye. 2 sano ayaa dambigooda halka lagu tirtirayaa. aad iyo aad ayaa loogu faa'iideystaa maalintan oo kale ah. ma ahan inaad ku dhumiso waqtiga oo ah mid aad u cararaya isla markaasna soo koobmaya in waqtigaadii aad ku dayacdo maala yacni waxyaabo la'ayna. waa hal maalin oo kaliya kana dambi aad u weyn lagaaga dhaafay 2 sano. marka waxay ka turjumaysaa in maalintan cibaadadeeda aad asiibto Allah hawadan hana asiibsiya ayaan leenahay. dad badan ayaa jira fursadahan aan haysanin oo qaarkood ku jira hospitaal xanuuno la daala dhacaya, qaarkoodna ayba xaalado kale ku sugan yihiin oo aysan awoodin. haddii adiga fursadan ay ku soo marto waxa la rabaa si caadi ah inaad ugu faa'iideysato oo aad waajibkeeda gudato si dambigaasi uu Allah kugu dhaafo aad soo gashay. maadaama aan nahay dad dambi socda had iyo jeer dambiyo badan gala oo waqtiyadoodii ku dhumiya maala yacni waxyaalo aan dantood ahayn ka sheekeeyo waqti walba. waxaan leenahay Allah subxaanahu wa tacaala hanaga aqbalo insha Allah tacaala. dhammaanteen waxaa idin leeyahay hambali aan ka wada faa'iideysanay.